بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن هبي ونكسن داوديال كوسو دوادا برامج gaar ah waynu ku eegayno xaaladihii ugu dambeeyay bariga dhexe iyo arrimo kale oo caalamka ah qodobadan caawa barnaamijka idinkugu haynana waxaa ka mid ah Iiraan oo ansixisay sharci adkeynaya ciqaabta qof kasta oo la shaqeeya Israa'iil iyo Mareykanka iyadoo kaliya ay dhiman tahay saxiixa madaxweyne Pezeshkian si uu muddo yar la siiyay si uu u noqdo qaanuun rasmi ah sabab ma u noqon karaa in dadka reer Iiraan uu ka hor istaago la shaqeynta waxa loogu yeeray cadowga dalka ciqaab caynkeesa ah ayuu dhigayaa sharcigan cusub macluumaad ku saabsan ayaan idin haynaa sidoo kale barnaamijka waxaan ku eegaynaa caawa ma dhab ah in Xamaas aysan talada Gaza waxba ku yeelan doonin sida uu dhigayo hindisaha Trumpna ciidamada Israa'iil ay baaqi ku sii ahaan doonaan qaybo ka mid ah Gaza maamulka Falastiiniyiintu door ma ku leeyihiin maxayse ku dhisan tahay aragtida ay hindisahan ka qabto Masar oo uga dhow maamulista Gaza gudiyada haatan la qorsheynayo faafahin ayaan idinkaga haynaa arrintan sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa tan iyo markii uu maamulka Mareykanka kordhiyay cadaadiskiisa lagu caburinayo isku soo baxyada taageeraya qadiyadda Falastiin ee gudaha waxaa kordhay doodaha ku aadan ku xadgudubka dastuurka ee maamulka haddaba maxaa ka jira in garsoore Mareykan ah uu xukun adag ku riday maamulka Trump xukunkaani ma qafiifin doonaa go'aanada maamulka Trump barnaamijka ayaan idinkugu haynaa iyana dhammaan macluumaadkan oo faahfaahsanayaan caawa idinkugu soo gudbin doonaa halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xirnayna hadda kusoo bir waanad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka barnaamijka sheekada ugu horeysa ee barnaamijka caawa tan iyo markii uu maamulka Mareykanka uu kordhiyay cadaadiskiisa uu ku caburinayo isku soo baxyada lagu taageerayo qadiyadda Falastiin ee ka qabsoomaya gudaha Mareykanka waxaa kordhay doodaha ku aadan ku xadgudubka dastuurka ee maamulka Trump uu ku kacayo garsoore Mareykan ah ayaa xukumay in maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku xadgudubay dastuurka isagoo uu bartilmaameedsaday arday iyo aqoon-yahano ajaanib ah oo ka qayb galay barnaamijyo iyo ololayaal lagu cambaareynayo dagaalka Israa'iil ee ka socda Gaza garsoore William Young oo ka tirsan maxkamadda federaalka ee magaalada Boston ayaa sheegay in maamulka Trump uu dejiyay siyaasad sharci darro ah oo lagu laalayo fiisayaasha ardayda iyo macallimiinta ajaanibta ee ku howlan ololaha lagu taageerayo Falastiin lana qabto oo la xirayo dadkaasi kadibna la musaafurinayo Yang waxa uu ku tilmaamay arrintaasi inay tahay caburin xorriyadda hadalka ah iyo ku tumasho cad oo qodobka koowaad ee dastuurka Mareykanka lagu sameeyo garsooruhu waxa uu sharaxay in xukunkiisa marxaladan uu ku kooban yahay oo kaliya cadeynta sharci darrada ah ee siyaasadaha huwan isagoo oo xusay in goor horeba uu qaadan doono tallaabooyinka laga maarmaanka ah ee lagu xalinayo kiiska qarinada u dooda kooxaha macallimiinta ayaa maxkamadda ka codsaday in ay soo saarto amaro ka mamnuucaya maamulka Trump in uu sii wado hanjabaadaha ku aadan tallaabooyinka noocaasi ah oo la qaado maamulka Trump ayaa xoog ku soo saaray joojinta banaanbaxyada dalka ka dhacay lagu cambaareynayo dagaalka xasuuqa lagu sifeeyay Israa'iil ay ku hayso dadka reer Gaza waxaana uu joojiyay dhaqaalihii la siin jiray jaamacadaha dalka isagoo isku dayay in uu musaafiriyo qaar ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha Falastiin isla markaana ku eedeeyay inay faafinayaan waxa loogu yeeray nacaybka Yahuuda ololaha ka dhanka ah ardayda ajaanibta ah waxa uu ku bilaabmay qabashadii bishii Maarso lagu sameeyay Maxamuud Qaliil oo ahaa arday asal ahaan reer Falastiin kadibna waa uu sii balaartay ilaa heer lagu hanjabay in la musaafirinayo dadka lagu qabto ka qaybgalka barnaamijyada lagu taageerayo qadiyadda Falastiin iyadoo inta badanna maxkamaduhu ay amreen sii deynta dadkii la xiray tan iyo markaasi maamulka Mareykanka ayaa cadaadis xoogan saaray jaamacadaha waaweyn ee gudaha Mareykanka oo ay ku jiraan jaamacadaha Columbia iyo Harvard isagoo ugu hanjabay in uu joojinayo maalgelinta federaalka ay ka helaan haddii ay taageeraan ardayda iyo macallimiinta ku howlan howla lagu taageerayo qadiyadda Falastiin isla markaana lagu faafinayo waxa ay ugu yeereen nacaybka Yahuuda waa tahay markana warbixinta xigta ee barnaamijka
waxaa soo baxaya ifaalooyin muujinaya in xamaas laga saari doono maamulka Gaza sida uu dhigayo hindisaha cusub ee madaxweyne Donald Trump uu soo bandhigay ee ku saabsan joojinta dagaalka Gaza. Su'aalo kale oo ay ka mid tahay doorka maamulka Falastiiniyiinta ayaa iyana la isweydiinaya, iyadoona weli qaar ka mid ah qodobada ama faahfaahinta qorshaha uu ku dhawaaqay Trump 2 maalmood ka hor ay yihiin kuwa aan la caddayn. Haddana wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Badr Cabdillaati ayaa adkeeyey in aragtida Masar ay ku dhisan tahay joojinta degdega ah ee dagaalka iyo xasuuqa Gaza ka socda, ilaalinta shacabka iyo sidoo kale xaqiijinta badbaadadooda. Waxa uu sidoo kale warbaahinta u sheegay in marka la gaaro xabad joojin isla markaana la sameeyo qorshe kala guur ah, maamulka Gazana ay mas'uuliyadiisu saaran tahay Falastiiniyiinta laftooda, iyadoo aan faragelin dibadeed oo toos ah lagu samayn doonin arrimahooda gudaha. Mustaqbalka Xamaas waa arrin kale oo iyana la isweydiinayo. Wasiirku waxa uu sheegay in aayaha Xamaas ay go'aamin doonaan Falastiiniyiinta laftigooda, halka dooda hadda jirta ay ku qotonto samaynta guddi kala guur ah oo maamula Gaza, taasi oo aanay qayb ka ahayn dhaqdhaqaaqa Xamaas si loo xaqiijiyo sii wadida adeegyada asaasiga iyo xasiloonida gobolka, sida uu hadalka u dhigay. waxaana uu intaasi ku daray in doorka Qaahira uu noqon doono mid taageero siinaya guddiga kala guurka ah kadibna maamulka Falastiin, isagoo carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la dhiso wixii togan ee ku jira qorshaha maamulka Trump uu soo bandhigay ama madaxweyne Trump, sida midaynta daanta galbeed ee Gaza si loo xaqiijiyo xasiloonida gobolka loona kordhiyo fursadaha nabadda ee gobolka. wasiirku waxa uu ku celiyey in aan marnaba la musaafirin doonin Falastiiniyiinta iyo in isgoyska Rafax ee dhinaca Masar uu furnaan doono oo keliyana loo isticmaali doono ujeedo bini'aadantinimo, balse aan loo adeegsan doonin barakicin qasab ah oo dadka reer Gaza looga saarayo dhulkooda. Haddaba muxuu yahay qorshaha Trump? Habeennimadii Isniinta, madaxweynaha Mareykanka ayaa soo bandhigay qorshe ka kooban ilaa 20 qodob oo lagu soo afjarayo dagaalka Gaza oo socday ku dhawaad ilaa 2 sano. kaasi oo ay ka mid ahaayeen in la sameeyo hab lagu horumarinayo marinka Gaza, isla markaana la bilaabo hanaan horseedaya in la dhiso dowlad Falastiini ah. Aqalka Cad ayaa faafiyey shuruudaha qorshahaasi, kuwaasi oo dhigayay in Gaza ay noqoto deegaan hubka ka caagan ama hub la'aan ah. ciidamada Israa'iilna ay dib ugu gurtaan afaafka hore oo ay tagaan xariiq la isla ogolaaday si loogu diyaar garoobo sii deynta maxaabiista, isla muddadaasina la joojiyo howlgal kasta oo ciidan oo socda. Aagaga dagaalkuna sidii ay ahaayeen ay ku sii nagaadaan ilaa laga gaarayo xaalado dhammaystiran oo suurtagelinaya bixitaanka ciidamada Israa'iil in muddo ah oo marxalado isbedbedelaya ku imaan doona. waxa kale oo uu dhigay qorshuhu in bixitaanka ciidamada Israa'iil lagu saleynayo shuruudo ku saabsan hubka dhigista, marxaladaha iyo sidoo kale jadwalka waqtiyeed, kuwaasi oo lagu heshiin doono inta u dhaxaysa ciidamada Israa'iil iyo sidoo kale ciidanka caalamiga ah ee xasilinta damaanad qaadayaasha iyo Mareykanka, si loo hubiyo in Gaza ay noqoto deegaan ammaan ah oo aan khatar ku ahayn Israa'iil, Masar iyo muwaadiniintooda. sida ku cad qorshaha, ciidamada Israa'iil waxay si ficil ah oo tartiib ah ugu wareejin doonaan dhulalka Gaza ee haatan ay haystaan, iyagoo ku wareejinaya ciidanka caalamiga ah ee xasilinta, iyadoona la raacayo heshiis lala galo maamulka kala guurka ah ilaa ay ka bixi karaan gebi ahaanba Gaza, isla markaana laga reebo joogitaanka aag amni oo baaqi ay ku sii ahaan doonaan ciidamada ilaa laga xaqiijinayo in Gaza ay si buuxda looga ilaalin karo khatar kasta oo cusub ama kasoo cusboonaata oo sida la sheegay Israa'iil waxa u dhimaysa. waa hagaag daawadayaal, waxay nagu soo aadan sheekada ku aadan Iiraan oo ansixisay sharci adag oo ciqaab ah kana dhan ah dadka lagu helo falalka basaasnimo ee loogu adeegayo Israa'iil iyo Mareykanka. balse intayna sheekadaasi u kala duwan sida Facebooka, YouTube-ka, Twitter-ka iyo weliba Telegram-ka, warbixino qoraal ah, faalooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan oo aad ka dheehan kartaan barta aynu internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnow HBN oo ka dhigo weelkaaga wararka. waa hagaaga markana sheekada ugu dambeysa ee barnaamijka.
Iiraan ayaa maanta ansixisay qaanuun cusub oo adkeynaya xayiraadaha iyo ciqaabta lagu ridayo dadka lagu eedeeyo inay wax u basaasaan Israa'iil iyo Mareykanka, balse dhaqangalkiisa waxa uu ku xirnaanayaa in madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian uu saxiixo muddo 5 maalmood gudahood ah si uu u noqdo qaanuun sax ah oo jira. Xeerkan ayaa golaha baarlamaanka la horgeeyay 23 bishii Juun ee sanadkan xilli Iiraan ay ku jirtay dagaal 12 maalmood socday oo la gashay Israa'iil kadib weeraro diyaaradeed oo Mareykanku ku qaaday dhowr goobood oo xarumaha nukliyeerka Iiraan ahaa ee soo gabagaboobay. Intii uu dagaalku socday oo bilowgiisii ahaa weerar lama filaan ahaa oo Israa'iil ay soo qaaday, Iiraan waxa ay xirtay dad dhowr ah oo looga shakiyay inay yihiin basaasiin u shaqeysa Israa'iil iyo Mareykanka. Golaha ilaalinta dastuurka oo ah hay'adda dib u eegista sharci dejinta Iiraan ayaa shaacisay in qoraalka la ansixiyay si loo adkeeyo ciqaabta basaasnimada iyo iskaashiga lala yeesho maamulka sahanuuniyiinta iyo dalalka cadowga ku ah amniga iyo danaha qaranka ee Iiraan. Marka laga soo tago Israa'iil iyo Mareykanka, golaha ilaalinta ma uusan magacaabin dalal kale oo loo aqoonsaday cadowga Iiraan, balse waxa uu sheegay in si kas ah qofkii gacan u siiya dalalkaasi ay ka dhigan tahay fidno dhulka ka jirta oo ka mid ah dembiyada ugu culus ee Iiraan laguna abaalmarin karo xukun dil ah sida ay warisay wakaalada rasmiga ah ee IRNA ee Iiraan. Sharcigii hore ma uusan tilmaamin dalal gaar ah, sidoo kale basaasnimadu kama mid ahayn dembiyada lagu mutaysan karo xukun dil ah. Qaanuunkan cusub waxa uu sidoo kale dhigayaa xabsi ilaa 2 sano ah qof kasta oo isticmaala, gudbiya ama iibsada ama sidoo kale iibsha qalabka isgaarsiinta elektaroonikada ee aan loo ogoleyn ee internetka sida Starlink oo loo adeegsado in lagu galo waxyaabaha dalka Iiraan laga mamnuucay. Waxaa sidoo kale lagu xukumi karaa ilaa 5 sano oo xabsi ah qof kasta oo u dira muuqaalada iyo sawirada kanaalo dibadeed ama kuwa cadow ah kuwaasi oo wax u dhimaya amniga qaranka Iiraan, sida lagu sheegay warbixin ay soo xigatay wakaalada IRNA. Kanaalo badan oo afka Farisiga ah ku hadla ayaa laga baahiyaa dibadda kuwaasi oo dowladda Iiraan ay u aragto kuwo cadow ah. Sharcigan waxa kale oo uu mamnuucaya in banaanbaxyada iyo isku soo baxyada aan la ogoleyn xilliyada dagaalka dalka uu ku jiro. Bishii Luulyo, 57 qareen iyo sidoo kale garsoorayaal Iiraaniyiin ah ayaa cambaareeyay qoraalkan, iyagoo sheegay in uu ku xadgudbayo mabaadi' fara badan oo dastuurka ah, mabaadi'da shareecada iyo xeerarka sharciga aasaasiga ah. Sharcigani waxa uu siinayaa madaxweynaha Iiraan muddo 5 maalmood ah oo uu ku saxiixo qoraalka si uu sharci rasmi ah u noqdo dalkana uga dhaqan galo. waa hagaag daawadayaal, caawa guud ahaan waxaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka waynu ka eeganay xaaladihii ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo arrimo kale oo caalamka ah. Si aad u hesho wararka, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan amaba aadan hore ugu xirnay